سؤال تضباطني شناد شيخ سورة الفاتحة كليجيد إن صلاة كنت كذو ما يبنان تهي ها تمد واجب صلاة داس أما مد السنة جزاك الله خيرا. سيدي علماء أوبريهين وإن فاتحة كليجيد أي صلاة كو أصحيس فاتحة كليجيد إن صلاة كو أصحيس وحي كسيات سنة إنه السنية سيدا علماء أوبريهين بل علماء قار كم إذا إجماع بيسوق قوريان سيدا الإمام ابن حبان أبو حاتم ابن حبان يا الإمام القرطبي وحيليهن وإجماع إن فاتحة كليجيد أي صلاة كو أصحيس دي كليجيد لغو قابصنا أدلة لو دليشان باو حاكم إذا حديثك لغوريو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحليه هاي وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت هذا فاتحة وحانا هين بأخرين ويكفل أنت وإن زدت فهو خير هذا فاتحة وحكدر طول القرآن كلا أخردنا وخير سيادة يقول بخاري بصوص صاري أثر كاس ابن حجرنا وحليه حكم الرفع بوليه وحكى له معناها الكتوسية ننكي كقوستي صلاة ابن خزيمي أبو داود رواية صوص صارين معاذ مركو صلاة عشاء كل يدتك نبى كقوستي صلاة كدبنا معاذ وحكى الشيء كدبنا نبي قود دعوة صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يديويل كده لن يرضاها سياتي هذا بوري صلاة هذا دحدد وريشك سيدو تكتا markaasa wuxuu yiri wiilkii dhalinyarada ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aasha markuu weydiiyay wuxuu yiri anugu faatixada baan akhriyaa ilaahayna janna weydiista cadaabna waan ka magan galaa laakiin adiyo mucaad mumuudan iyo waxaan akhriyeysaan waxba ka garan maayo faatixadana waan akhriyaa ilaahayna waxaan ka magan galaa cadaab jannana waan weydiistaa intaas nabigu sallallahu alayhi wasallam madhihin faatixada kaligeed kuguma fil lama dhih bal nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam anim yaad laftanadu inta baanu ku wareegaysanay nabigu sallallahu alayhi wasallam halka ma dhaafsiisin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaheedu marka waxa laga qaadanayaa xadiiska wuxuu ku tusaya faatixada kaligeed waa ku filantay waa madhabul jumhur adiladan walo dirishanay xadiis ibn Abbas baa jira nabiguna laba ragcadood tukaday faatixada kaliya ku akhriyay laakiin dhacfi baa ku jira handalat saduusini iraada ku jira dha'ifa adiga intaas ku filan khilaaf waa ku jira saxaabada qaar kood iyo fuqahaada qaar kood laakiin mas'aladu saas ay xoog badan tahay waana sida jumhuurtu qabto faatixada kaligeed inay ku filan tahay oo salaadu ku asaxayso wallahu a'lam.